فيديوغا عنكا هتدرادي ورا الدبا فيديوغا عنكا هتدرادي ورا الدبا وتلقى هلايا رسمي ويا رسمي ويا رسمي ويا رسمي ويا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني وريريو رسمي عدك شعبي قبرق أفريقيا واد كدقيستان رسمي media.com dhegaystayaal imikii haatanna waxaa la soo gaadhay amintii aan idiin soo gudbin jirnay warkii caalamka. madaxdiisii mujaahid cali yuusuf cali guray oo xukuumadda Siilayo ku eedeeyay inay dhiiri gelisay weerarada lala beegsanayo madaxda Somaliland. ciidamada Amisom iyo nabad sugidda oo is hortaagay dibadbax laga soo abaabulay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare Saacid oo xalana looga yeeray. gudoomiyaha xisbiga talada haya ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ka waramay shirweynaha xisbiga Kulmiye. warkii oo fidsan mujaahid cali yuusuf cali guray ayaa dhacdadii lagu weeraray mujaahid maxamed kaahin ku tilmaamay mid aan weli la helin furaheedii ama ujeedada laga lahaa. waxaanu ku tilmaamay falalka caynkan oo kale inaanay hore uga dhici jirin Somaliland. waxaanu xukuumadda ku eedeeyay in haddii ay wax ka qaban lahaayeen weeraradii lala beegsaday Hubaal iyo xildhibaan qabiile ay noqon lahayd tan mid wax laga qabto. hase ahaatee ay Somaliland dhayalsatay wax ka qabashada. cali guray waxa uu sheegay in haddii aan waxba laga qaban arrimaha hore iyo arrintan ay noqon doonto Somaliland fowdo maalinba madaxda Somaliland lagu toogto meesha ay marayaan. gudoomiyaha xisbiga talada haya ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xaflad uu xisbigu isugu yimi kaga hadlay shirweynaha dhici doona bisha December. waxaana hadaladiisii kamid ahaa madaxda qaranka xubnaha xisbiga Kulmiye ee heerarka kala duwan martisharafka kale bacda saxaafadda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waa qadar weyn oo taariikhda Somaliland ka gelaysan dahaba oo taqdiir ka gelaysan dahaba inay ku soo biiraan xubno sida codkii Somaliland qaybo badan oo ka mid ah oo weliba halka u baraysa ilaa ka u dambeeysa ka kooban oo xildhibaanadii baarlamaanka ugu caddaansanaya inay maanta Kulmiye soo xoojiyaan oo ku soo biiraan. waa ilaahay mahadii iyagana waa mahadnaqaynaa. وانا هاي اي روغلين والقرن في حسب روغلين اواخر روغلين سوري ما سوى بس هذا يطول وحسنا سميا وشيريا ان كم دخل سنه حسب كليه اللي بان الله والقرح اي فقيان يميزان المسؤوليه عن السياسه اي كل كلام حسب كليه. أنا أعلم يا رجال أرندا سعد صاري بارلمان كميدا حكومة كميدا حزب كميدا وضيال كميدا هورين كميدا وأنا بدرسولي أنا ينزور سيدي ماذا حوينا يوم علينا يوم بدرسولي عن كل سوري أنا مخصص وأنا سوري سعادة صاري ولا هسه هذا كله وكبجوا midwaa shirweynaha Kulmiye ee nagu soo foolay ee aad u horay. midna waa arrin aad uga hadlay oo ah shir qaran oo hadda magaalada aad u jira. waata koowaad
shirka xisbiga kulmiye inuu buuxbato inuu buuxbato waa waajibka shirka loo qabanaya ee hawshiisa shirka kulmiye waxa uu qorshayn doonaa haddii alla yidhaahdo siyaasadda dalka somalilan oo saameynaysa ilmaha caawa dhashay iyo ka ugu da-da weyn ka geela raaca ka looda raaca ka qurbaha jooga ka biyasiga sita ka maalqabeenka ah iyo ka tuursada dhammaantood shirkaasuu saameynaya wuxuu saameynaya mustaqbalkooda waxaa laga hadlayaa noloshooda siday noqon doontaa 5 sano ee soo socda shirka kulmiye wuxuu ka hadli doonaa qodobada ugu muhiimsan nolosha socda oo kow ka tahay in dadka Soomaaliya midoobo sida halkaa laba gacmood isugu haysto oo magaciisa yahay xisbiga midnimada inay Soomaaliya dhammaan ku isku toodo iyadoo oo midaysan waxa uu qorsheyn doonaa amniga dalka oo ah qof kasta oo Soomaaliya inuu ku seexdo nabadgeliyo oo aanu kale amooyee gacan ka baqan isaga oo isku huba in xukuumaddiisa iyo dowladdu u doortay ay ammaankiisa sugto midoobay ayaa ku tilmaamtay dhibaatadani inay tahay tii ugu weyneyd ee soo marta dunida. qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in ay 10 milyan oo ruux saameysay duufaankani sidoo kalena 660,000 oo ruux ay ku barakaceen. dhanka kalena qaramada midoobay ayaa ku deeqday 25 milyan oo dollarka Mareykanka ah. dhanka kalena waxa la sheegayaa Mareykanka ayaa xeebaha dalkaasi Philippines u diray markab kuwa dagaalka kaasi oo ka qayb qaadan doona howlaha gargaarka. dowladaha kale ee caalamka ayaa iyaguna ilaa hadda ku soo gurmanaya dalkaasi Philippines. dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda caalamiga ee radio rasmi codka shacbiga bariga Afrika. iminkii haatanna waxaan idinku wareejinayaa istuudiyaha iyaga magaalada Muqdisho oo halkaasi inooga sii wadi doono wariyaheena Burhaan Cabdilaahi Cilmi iyo wararkeena kale. mahadsanid Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa si dhab ah u xaqiijiyay warkii ay saxaafadu daaha ka rogtay shalay subax ee ahaa in khilaafka u dhaxeeya uu yahay mid dhaba isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu Saacid sheegay in khilaafka isaga iyo madaxweynaha uu yahay mid dastuuri ah balse aanu ahayn mid siyaasi ah. Saacid ayaa war saxaafadeed uu goor dhawid soo saaray waxa uu ku yiri anoo ka xun waxaan ku wargelinayaa ummadda Soomaaliyeed inuu dhab yahay ismaandhaafka aniga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse uu yahay mid dastuuriya. waxa uu sidoo kale fariin u diray shacabka Soomaaliyeed waxaana uu kaga hadlay xaaladihii dawladdu ay soo martay iyo khilaafkan cusub. waxaa xusid mudan in bisha Noofambar 2013 ay tahay sanad guuradii koowaad ee dhinaca dhismaha dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo marxalada adag iyo caqabado badan ay jireen haddana muddada kooban ee halka sano ahayd oo ay dawladeena dhisnayd waxay gaartay guulo waaweyn iyo waxqabad muuqda gaar ahaan dhinaca amniga dib u heshiisiinta maamulka iyo kobcinta dakhliga dawladda waxbarashada xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda dhismaha hay'adka dawladnimo iyo wixii la mid ah ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. waxa la sheegayaa in saaka madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid looga yaray xarunta ugu weyn ciidamada AMISOM ee Xalane ee magaalada Muqdisho iyadoo xarunta Xalane ay fariisimo ku leeyihiin safaaradaha reer galbeedka intooda badan ayaa waxa lagu wadaa in labadani mas'uul ay kulan ku yeeshaan si loo xaliyo khilaafka maalmihii ugu dambeeyay u dhaxeeyay ee cirka isku shareeray. warku wuxuu intaasi ku darayaa in arinta khilaafka ay sii horisay kadib markii labada mas'uul ay isku qabsadeen magacaabista wasiirada cusub iyadoo la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wado abaabul qorshe uu ku doonayo inuu daaqada kaga saaro Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Saacid. Ra'iisul Wasaaraha ayaa isaguna arintaasi ka gowsadayay diidayna inuu daaqada ka baxo.
dibadbaxan ayaa ahaa mid lagu taageeri lahaa ra-iisul wasaare saacid iyo waxqabadkiisii iyo sida ay bulshada muqdisho raalliga uga tahay in uu sii joogo xafiiska waxaana dibadbaxan soo abaabulay xafiiska ra-iisul wasaaraha ciidamada amisom iyo kuwa nabad sugidda ayaa ka war helay abaabulka dibadbaxan waxayna amreen in la joojiyo iyaga oo ku andacoonayay in ay ka cabsi qabaan in lagu soo dhex dhuunto ayna dhacaan dhibaatooyin fara badan warar kale oo madaxtooyada laga helayo ayaa sheegaya in xafiiska madaxweynaha Soomaaliya uu codsaday ciidamada amisom in ay joojiyaan dibadbaxayaasha laga soo abaabulaya xafiiska ra-iisul wasaaraha si aan loo ogaan taageerada loo hayo ra-iisul wasaaraha lama oga sid uu ku dambeyn doono abaabulka dibadbaxan lagu taageerayo ra-iisul wasaare saacid waxayna tani dad badan soo xusuusinaysaa xilligii ra-iisul wasaare farmaajo lagu qasbayay inuu iscasilo oo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibad ay taageerayeen inuu sii joogo jagada ra-iisul wasaarenimada warkaasi wuxuu idinka imanayaa xafiiska radio rasmi ee magaalada Muqdisho mahadsanide burhaan cabdilaahi cilmi oo inoo soo gabagabeeyay warkii caalamka warkan xigay intaynu ku kulmi doono dhamaantii bahda rasmi media waxa idin leedahay kadaba iyo kulan dambe oo xiiso badan Yes.